guriga gudihiisa marka soo gasho saas uu qurux badan yahay tanna waa musqushi oo aad u nadiif ah kani waa mid kamid ah qolalka chiefka ee laba daaqadood leh aad buu qurux badan yahay kana waa qol kale oo sina kamid ah qolalka chiefka oo sina aad u ballaaran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh akhyarta qiimaha badan ee sida joogtada halkan iigu xidhan aad baad u mahadsantihiin maanta waxaan nimi guri kale oo ku yaala xaafadda Masalaha oo dhistay shirkad kamid ah shirkadaha magaalada Hargeysa shirkadana magaceedu aan idiin sheegi doonaa guriga gudihiisa bayna soo galnay halka idiin soo muuqata waa parkingkii gaariga oo gaari iyo wax ka badan ba aad dhigan karto dhanka kalena waa daaradii guriga halka waxa ka soo muuqata bahashirada bilaacada ama xaawistii loo yaqaano hawada naqaska u turta gurigani waa guri casriya oo ku yaala xaafadda Masalaha baryahan xaafadda Masalaha ayaan dhowr guri ka soo duubay kuwaasaan idin la wadaagi doona hadii Rabbi ogolaado hadda gurigii gudihiisii bayna soo galnay lightingka iyo laambadaha quruxda badan baa lagu sameeyay qolalku sidaas isaga soo horjeedaan run ahaantii gurigani waxa uu ka kooban yahay 7 qol buu ka kooban yahay waa guri aad u weyn waxa dhistay shirkad aan magaceeda idin la wadaagi doono hadii la yiraahdo kani waa qolkii fadhiga bahasha yar halka idinka soo muuqata wasajaayadii oo marmarka guduhu waa marmar yara dambariya oo cadaan xigin lightingka guduhu aad ba loo qurxiyay laambada fiican waa lagu xidhay macmiilkii guriga loo dhisayay baa sidan doortay design-ka sare baa loogu sameeyay guriga oo aad u qurux badan iyo laambadihii ugu dambeeyay gurigani san idin sheegay waxa uu ku yaala xaafadda Masalaha waa guri aad u qurux badan oo aad u waafiya dhulka uu ka dhisan yahay horta waxaan soo galnay mid kamid ah musqulihii guriga ilaa 3 musqulood buu leeyahay gurigu bahashirada baadka ee lagu dhex meedhanayay marmarka yare greenka ba ku dhex yaala aad buu run ahaantii gurigana uu qurux badan yahay bartii yareeyde muraayadii farxalkii iyo bahal yaro lightina oo qofku isku daawanayo bahalka ku soo yaala waa heaterkii biyaha ku leeynayay xilliyada dhaxanta gurigan cabirkiisu waxa uu ka dhisan yahay 24 iyo 18 mitir waa 24 by 18 waa guri aad u ballaaran oo dhul waafi ah beer parking iyo waxyaabo badan oo kale uu qofku ka samaysan karo kani waxa weeye run ahaantii qolkii maxay toolay cuntada qolka aadka loo qurxiyay aadka u quruxda badan wad aragtaan xagga sare sida loo qurxiyay loo habeeyay fadhigiina insha Allah waan soo marnay markalena waan ku noqon doonaa kani waa qol kamid ah qolalka chiefka sidaas uu qurux badan yahay kana waa qol kale oo isna daaqad dhanka ku soo leh rinjigaas uu leeyahay indhaha quruxda badan oo aanay indhuhu waxba ay ku noqonahayn daaqaduna ay dhanka kaga taalo oo ay iftiinka iyo leedhuba ay ka soo si fiican ay uga soo galayaan gurigu qol kasta daaqad uu leeyahay oo hawadu si fiican uga soo gasho kana waa suuli kale oo kamid ah suuliyada ku yaala guriga oo isaguna suuli aad u nadiif ah oo marmarkiisa meel kastaba marmar laga dhigay si aanay biyuhu aanay u soo galin ama qoyaanku si fiican oo fududna loo nadiifin karo kani isna waa qolkii chiefka ee weynaa oo isna qalabayn u baahan oo aanay wax sariir dhaxool laba daaqadood buu leeyahay kitchadii bayna soo galnay waa run ahaantii waa kitchen casriya macmiilka gurigan loo dhisay design-ka soo doortay kitchada halkaas lagu guraya alaabadii iyo weelalkii iyo wixiiba halkan hoose laftirkeed waa bartiirada wax la saarayay idinka iga yaqaana xagga yara sare waa yara sabad oo yara adag tahay xagga hoosena waxa weeye waloox markii aan gurigan duubayay meesha aan ugu jeclaysto waxa ahayd kitchada waxay noqotay heer caalami waa kitchen aad u qurux badan inta badan kitchooyinku qofku isaga design-ka doorto sida gurigaba uu dooranayo ayuu u doortaa kitchadana marka gurigu waa ka aad buu gurigu u qurux badan yahay faahfaahintii kale ee gurigu halkan waxa uu jeedaa dhanka
bari ayuu u jeedaa gurigu ganjeel buu leeyahay halkaa yar hore marmar baa sii yaalaa guriga hadda lama soo gelin dhowaan baa farta laga qaaday halkaa daaqadaha waxaa la soo geliyey karatoon ayuu ninkii injineerka soo geliyey maadaama guriga gudihiisu uu wada yahay quraarado nadiif uu yahay saani dhaska iyo waxaasi aynu soo gelin xilliyada dabalxagaaga ama ay jiraan dabayluhu inta badan guryaha aan soo duubo magaalada Hargeysa anuu shakhsiyan waxaan doortaa inaan duubo guryaha aadka quruxda badan oo aan lahayn wax ina si aan channelkayga iyo asxaabtayga ugu xidhan aan u raali geliyo qofka macaamilka ee dhanka lambarka WhatsApp-ka igala soo xiriira ay igu yiraahdo guri baan doonayaa ha noqdaan degmooyinka kala duwan ee magaalada Hargeysa ha noqdaan talo fiican baan ka siiyaa maadaama oo hay anigu aan cameraman ahay oo guryaha iyo arrimaha commercial-ka iyo waxa aan soo duubo injineerka shirkadda dhistay gurigan run ahaantii waxa weeye waa shirkadda waxa la yiraahdaa shirkadda Khayr Construction Company baa la yiraahdaa waxay ka howlgashaa magaalada Hargeysa waa shirkadda aan si joogto ah ula shaqeeyo waxay kamid tahay shirkadaha tayeysan ee aan la shaqeeyo inta badan marka aad guri dhisanayso kullee guriga waxa uu ku xidhan tahay dhulka aad dhisanayso waxyaabaha ay soo weydiiyaan dadka macaamiisha ee guryaha dhisanaya waxaa kamid ah gurigaas oo kale qiimihiisu waa imisa guriga horta marka hore guriga waxay ku xidhan tahay dhulka aad haysato shuruudaha xadidaya inay lacagtu isbedbedesho waxaa kamid ah dhulka kamid ah cabirka guriga aad doonayso inta qol aad doonayso ma beer baa lagu raacinayaa ma waxa lagu raacinayaa deyr baa lagu raacinayaa ma waxa doonaysaa musqulo extra ayaa doonaysaa waxyaabo badan baa ayaa sababaya inay lacagtu isbedbedesho dhismuhuna inta badan injineeradu sidaan ka muuqdo way iska hawl badan yahay guryaha qaar baa aad isu bedbedela oo qofku mar dambe uu wax soo dalbadaa oo yiraahdaa waxaan ay ugu dar oo qiimayaashuna saas isu bedeli karaan marka horta qodobadaas kamid ah inta badan dadka halkan channelkan ku xidhanna waxay soo weydiiyaan war gurigaas aan u baahanay gurigaas ma iiba guriyo iiba waan soo gelin doonaa laakiin inta badan waxaan soo duubaa guryo ay macaamiishu dhisato shirkadahani ay wax u dhisaan laakiin guryo iib way jiraan guryaha iibkuna anigu inta badan dadka kuma rukumo gareeyo maadaama gurigu uu ku oli karo meeshuu doono sida qaab kasta oo loo dhisi karaa marka inta badan sida injineerada la shaqeeya ay sheegaan waxay ugu dhahdaan guriga iibkiisu guri la dhisay iibkiisu ma fiicna waxa fiican guri aad si toosa ula socon karto oo step by step aad xaaladiisa ogaan karto bartu laga dhisayo dhulka kale ciidoo kale guryuhu way dildilaacaan marka dilaacaas oo kale saan hodhow u iman waa inaad meel aad garanayso dhul fiican aad ka dhisto oo adag in meelaha beeraha ayaa inta badan la yiraahdaa guryuhu way dildilaacaan beeraha ahaan jiray maadaama dhulku uu jilicsan yahay marka guryo fiican oo la iibiyaana way jiraan oo si fiican loo dhisay oo bilaa cilada bilaa waxba laakiin inta badan anigu guryaha macaamiisha loo dhiso ayaan soo duubaa marka waxaan kula talinayaa khayarta bartan igula xidhan qofku marka hore uu dhulka iibsado uu dhulka uu si xaasiliyo marka waayo dhulku wuxuu doonayaa qofku meel marka meesha aad ka rabto markaad ka dhisato locationkaad jeceshahay ayaad hadhowna gurigii aad u guri kartaa oo aad dhismihii bilaabi kartaa dhulalkuna qiimayaashoodu ay kala duwan yihiin iyo locationada ku xidhan yihiin magaalada waxaa ugu qaalisan masallaha jigjiga yaroo kaba sii fiican oo aad loo sii jecel yahay wadada 200 oo hadda aad u sii noqotay meel hadda la iibsado oo wadada berbera corridor ay marto ama wadada 200 oo noqotay wado heer caalami oo dad badan ay ka dhistaan marka taana insha Allah waxaan idinku xiri doonaa dilaalinta dhulka hadii qofka diyaarka ah ee doonaya ina uu dhul uu ka iibsado oo isla markaasina uu guri bilaabo marka dhulka hesho marka dhulka xasiliso inta badan dadku waxay iibsadaan dhulka sanad ka hor
hal sano 2 sano 3 sano qaar baa 5 sano dhulka haysta kadib dhisa maadaama dadku soo shaqaysanayaan oo ay doonayaan inay lacagtii dhismahan ay soo shaqeeyaan way fiican tahay oo noloshu halganka waa step by step laakiin inta badan uu yar yahay qof markaba israaciyo dhulkii iyo gurigiiba aad buu u yar yahay oo reer weeye laakiin inta badan guriga ayaa dhulka muhiim inaad hesho kadib marka dambena aad guri dhismaha aad ku darto markaas qiimihii iyo wixii saxaysa oo aad garan kartaa gurigaaga dhulka ka dhismaya ayaa qiimaha lagu dhisi karo shirkaduna way kala qiimo duwan yihiin way kala tayo fiican yihiin taana wad la socotaan marka khiyarta qiimaha badan gabagabadii waxaan idin leeyahay guri fiican baan idin rajeynayaa haddii aad su'aalo qabto lambarka igala soo xiriir WhatsApp-ka waxaan idinkaga tagay dhamaantiin sidaas iyo nabadgelyo fi amaan illah